kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan ku soo dhawaada barnaamij aan ku soo qaadanayno 5 ciyaaryahan oo magac iyo mansab ku leh kubadda cagta adduunka kuna soo guuleystay koob adduun iyo koobab kale ee aan haddana nasiibka u helin inay mar uun u dabaaldegaan koobka dhagaha weyn ee UEFA Champions League. inaad tahay ciyaartooy xirfadiisa sareyso oo laaciba kama dhigayso inay kubadda cagta kugu abaalmariso koob kastoo aad adiga doonayso. marka aad maqasho magacyada ciyaaryahannadan marna ma aaminaysid oraahda ah kuma soo guulaysan koobka UEFA Champions League. haddaba daawada ila soco oo meel ku qoro magaca ciyaaryahannadan ee nasiibka u heli waayay inay u dabaaldegaan koobkaasi. ciyaaryahanka koowaad ee aan ku soo qaadanayno barnaamijkeena gaarka ah kaasoo aan nasiibku u helin inuu ku guuleysto UEFA Champions League waa ciyaaryahan Gianluigi Buffon ee u ciyaara kooxda Juventus. Buffon oo 1987 ku dhashay magaalada Carrara Toscana ee dalkaasi Italy ayaa wuxuu ka mid yahay halyeeyada ay fadhiga ugu kacaan shacabka dalkaasi Talyaaniga. sidoo kale waa mid ka mid ah goolhayaasha ugu wanaagsan kubadda cagta adduunka iyo tan qaaradda Yurub. waa shakhsi kaalin mug leh ku lahaa in xulka qaranka Talyaaniga uu ku guuleysto koobkii adduunka ee sanadii 2006 iyo guulo joogta ah uu la gaaray kooxda marwada duqda ah ee Juventus taasoo uu dhiiga u shubay kulana guuleystay dhammaan koobabkii laga ciyaarayay dalka Talyaaniga laga soo bilaabo sanadii 2001 xilligaas uu kaga soo biiray kooxda Parma isagoo 22 jira. hadda uu ku jiro da'da 43 ayay weli dhexda u xiran tahay diyaarna u yahay inuu nafta u huro. isagoo guulaha inta la ka soo gaaray kubadda cagta haddana weli nasiib uma helin inuu ku guuleysto koobkaasi. wuxuu goolhaye iyo shabaq ilaaliye ka ahaa 3 finaal oo Champions League haddana waqtiga iyo waayaha kubadda cagta ayaa ka hiiliyay una diiday in xirfadiisa sare iyo magaciisa weyn inay ugu abaalmariyaan koobkaasi dhagaha weyn oo ay haystaan ciyaartooy aan magac iyo mansab ku dhex lahayn kubadda cagta caalamka. ciyaaryahanka labaad waa Fabio Cannavaro 47 jirkan 1973 ku dhashay magaalada Naples ee dalka Talyaaniga. haddaan iraado ka sheekay waxaanan helin waqti ugu filan oo aan uga waramo taariikhdiisii dahabiga ah ee lagu qoray diiwaanka kubadda cagta caalamka. daawada ma ogtahay daafacan mayalka adag inuu yahay daafaca kaliya ee ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or-ka kadib markii qaab ciyaareed cajiib ahaa uu ku soo bandhigay koobkii adduunka ee sanadii 2006. wuxuu kaarikooyin dhagxaana ku daadiyay goolkii uu waardiyaha ka ahaa Buffon kulan kasta oo ka tirsanaa koobkaas adduun. wuxuu u awood sheegtay weeraryahanadii ugu halista badnaa ee xilligaasi. wuxuu ahaa shakhsiga isagoo kabtana xulkiisii Italy kula guuleystay koobka adduunka ee sanadii 2006 wuxuuna haystaa abaalmarinta qaaliga ee Ballon d'Or-ka. wuxuu waqti qurux badan la soo qaatay kooxaha ugu tunka weyn ee qaaradda Yurub sida Napoli, Parma, Inter Milano, Juventus iyo Real Madrid. hase ahaatee midaas kama saacidin inuu maalin uun u dabaaldego koobka qiimaha gaarka ah leh ee UEFA Champions League waana nooc ka mid ah abaalmarinta ay kubadda cagtu leedahay. ciyaaryahanka saddexaad waa Lilian Thuram. inaad maqasho magaca Lilian Thuram ayaa waxaad markiiba xasuusanaysaa daafac madow oo guulo waaweyn la gaaray xulkiisa France iyo kooxo waaweyn oo qaaradda Yurub ka dhisan sida kooxda Monaco, Parma, Juventus iyo Barcelona. wuxuu 1972 ku dhashay magaalada Pointe ee ka tirsan gobolka Guadalajara ee dalkaasi Faransiiska. waxaa lagu xasuustaa guushii koobka adduunka ee sanadii 1998 markaasoo uu xulka Faransa u awood sheegtay xulka Brazil oo xilligaa laga baqi jiray isagoo ay guriga u taalo biladda dahabka ee koobka adduunka ee 1998. haddana bar madow ayaa taariikhda u gashay taasoo ah inuusan marna ku guuleysan koobka UEFA Champions League. ciyaaryahanka afraad waa Cesc Fabregas. wuxuu ka mid yahay ciyaaryahanada ka ciyaara qadka dhexe. magaciisa dhameystiran waa Francesco Fabregas Solar. wuxuu 1987 ku dhashay magaalada Arnes del Mar
kana tirsan gobolka Catalonia ee caasimadda Barcelona. Wuxuu ku qoran yahay buugga lagu qoray magaca halyeeyada dalka Spain maadaama uu qayb ka ahaa ciyaartoydii xulka kula guuleysatay koobkii adduunka ee sanadii 2010 iyo koobkii Yurub ee 2008. kooxaha guulaha uu la soo gaaray waxaa ka mid ah kooxda Barcelona, Arsenal, Chelsea iyo hadda uu joogo kooxda Monaco. sanadii 2006 ayuu gaaray fiinaalaha koobka Champions League isagoo matalayay kooxda Arsenal ee guuldarada kala kulantay kooxda Barcelona oo xilliga abood ku haysatay qaaradda Yurub. Fabregas markaas ayay ugu dhaweed inuu koobkan u dabaaldego, balse ma dhicin, waxaana hadda uu ka mid yahay ciyaaryahanada aan lagu qorin taariikhda koobkaas. ciyaaryahanka shanaad ahna kan ugu dambeeya aan barnaamijkan ku soo qaadanayno waa Luis Nazario da Lima Ronaldo. mucjisada reer Brazil ee kubadda cagta caalamka saameynta ku lahaa ee aan ilaa hadda la helin ciyaaryahan bedela booskiisa wuxuu 1976 ku dhashay magaalada Rio de Janeiro. waa laacib ay kari waayeen daafacyadii xilliga ciyaarayay, wuxuuna walwal iyo naxdin ku beeri jiray daafaca iyo goolhayaha ka soo horjeeda, waxaana astaan u ah oo uu caan ku ahaa inuusan gool ka dhalin ilaa uu gambis dhulka kaga dhigo daafacyada iyo goolhayaasha ka soo horjeeda. wuxuu ku soo guuleystay koobkii adduunka ee sanadii 1994 uu xulka Brazil ka qaaday xulka Italy, iyo kii 2002 ee ay ka qaadeen xulka Jarmalka. isaga ayaana ahaa shakhsiga u awood sheegtay goolhayihii Jarmalka Oliver Kahn, wuxuuna ka dhaliyay 2 gool oo sababtay inay koobkaasi u dabaaldegaan. wuxuu u soo wada ciyaaray kooxo mucaarad isku ah ee adduunka isugu neceb sida Barcelona iyo Real Madrid, Inter Milan iyo AC Milan. haddana isagoo nasiib u helay inuu soo xirto funaanadaha kooxahaasi ee wadarta koobka Champions League ay haystaan marka la isku daro gaaraya 25 koob, ayuusan nasiib u helin inuu maalin uun u dabaaldego koobkaasi. waxaan daawada halkaa ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ku soo qaadanay 5 ciyaaryahan ee ku soo guuleysatay koob adduun iyo koobab kale oo badan ee nasiibka u heli waayay inay ku guuleystaan koobka UEFA Champions League. intaan ku kulmayno barnaamijkan la mida idaaja oo idin leh, haddaad nagu cusub tahay subscribe dheh, share garee oo like garee. waxaan ku rajaynayaa caafimaad xilli kasta.